بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواده barnaamijkeena dhacdooyinka nolosha dhacdadan maanta soo qaadanayna waxay ku saabsan tahay gabar South Africa oo dhalatay oo islaamtay iyo sababta ay ku islaamtay gabadhan waxa la oran jiray Nozibel Phyllis Mali baa la oran jiray gabadhani waxay jaariyad u ahayd gabadh kale la oran jiray Mahran Daawud jaariyaday gabadhani ay ahayd waxay tiri gabadhan iyada ayaa ka sheekeynaysa waxay tiri aniga oo gurigii xaadaya oo mafiiqdiya oo fiiqaaya ayaa waxa dhagaha ku soo duulay cod aad u macaan oo qalbigayga hal mar soo jiitay ayaa maskaxdayda iyo qalbigayga ku soo duulay bay tiri oo dhagahaygu maqleen waan la sii raacay codkii baan sii macaansaday ilaa waaba quraan ilaa waxa la akhrinayaa قرآن بالله آخرنا يدو ما كقرآن ما قرنايسو لكن سو waxay leedahay wax la akhrinaya waxan aad uga helay ya akhrinaya inan yar oo ay dhashay gabadhan Mahran Daawud waxay tiri codkiiban aad u jeclaysay tiri shaqadana inan waana gurigiina waan ka shaqeynaya waan xaaraya ka yarna meel halkaas oo kale fadhiyo quraan buu sida ula soo kala baxayo waa akhrinaya markaas waxay tiri naftayda codkii way ka tagi kari weyday waan sii jeclaystay mar dambe waxaan arkay iyadoo la igu soo socdo sanqaad baan maqlay waxa tiri shaqadeedii ma degdeg u sii bilaaway waxa tiri waxa daba dhacay bay tiri markasta oo inan ka yar uu quraanka akhrinayo waxaan isdareemayaa anigoo dhageysanaya oo macaansanaya oo shaqadii yara joojinaya intaasoo kaliya maaha waxa tiri waxa iga yaabiyay gabadha guriga labay tiri Mahran Daawud qaabka ila dhaqmayso uu ka duwan yahay qaabka ila dhaqmi jireen bay tiri dadkii aan la soo shaqeyn jiray waa gabadh markaan guriga aan soo galo si runtii iyadoo ismaayl samaynaysa iyadoo runtii dhoola cadeynaysa ayay ila kulanta oo ila hadasha haddaan qalad sameeyo si yaro asturan bay igu sheegtaa arintana kuma arki jirin bay tiri dadkii hore la soo shaqeyn jiray intaasoo kaliya maaha bay tiri guriga aan ku noolahay يعني discrimination ma jira bay tiri oo cuntada ay wax ku cunaan iyo weelasha ay wax ku cunaan dadka guriga leh ayaan aniguna ku cunaabay tiri oo nalama kala saaro intaasoo kaliya ma habay tiri waxa qalbigaygu la yaabo maskaxdaydu la yaabtay gabadha guriga leh oo waqtiyada qaar intay weysaysato salaad tukanaysa oo aad uga helay arimahaas oo dhan baa waxay tiri maskaxdaydu soo jiiteen ina kaayra quraanka akhrinaya iyadoo markaa ma fahmayso quraan inuu yahay ayaa waxa tiri aad bu qalbigayga u dhaqaaji gabadha South Africaanka ah waxay sheegtay maalimihii dambe waxay tiri waxay dareentay gabadha guriga leh inaan xoogaa aan islaamka yara danaynayo markaas ay yeedhay waan wada hadalay waxay ugu tiri ilaahay bari ilaahay intaad barido ilaahay baa jidka toosan kugu hanuunaya waxay tiri dhowr bilood kadib waxay tiri aniga gabadhii guriga lahayn baa israacanay markas islaamiyo meesha ku yaala ayaan u tagnay markaskiiba islaamka ii sharxay waan islaamay tiri islaamkii markaan qaatay tiri hatta waxay tiri markaan shahaadada ku dhawaaqay way igu adkaatay tiri yaani gabigaygu waan isbedelay tiri adoo aakhirkii waan islaamay shahaadadiina waa ku dhawaaqay gurigii baan ku soo noqday laakiin hal mushkilad baa dhacday tiri guriga anigu aan deganahay habeenkii u hooydo waa guriga walaalkay leeyahay walaalkayna waxa la degan bay tiri xaaskiisa oo Christina la yiraahdo xaaskiisa walaalkay Christina way diiday in guriga ku noolaado waxay ugu bilowday cadaawad bay ugu bilowday maadaama islaamkii qaatay aakhirkii waxay noqotay bay tiri gurigiina ka tago guri kale gabadh kale ayaan tagay halkaasan seexad jiray shaqadana waxaan ka shaqeyn jiray halkayga hore gabadhii islaamisay islaamka iyo horseeday iyada waan u shaqeyn jiray sida caadiga baan ugu soo shaqo tagi jiray laakiin meel kale ayaan u hooyan jiray waxa tir muddo ka bacd gabadhii walaashi qabay inay yaray dhashay ayaa dhintay tir markuu dhintay ayaan u tagay tir aad baan u la shaqeeyay tir aad baan u la tacaatufay tir dad badan iyada asxaab ahaayeen bay tir umay iman taasi waxay keentay bay tir
gabadhii eride Kristiina inay isoo dhawaysato inay tiraahdo wallahi gabadh wanaagsan baa tahay inay aad ii soo dhawayso kadibna markii dambe ay tiraahdo bal anigana waxaad igeysaa markaska islaamiga si aan islaamka wax uga ogaado dhowr jeer markaan ku noqonay markii dambe waa islaamto halka hawsha marka ay marayso intaas kuma istaagina waxay tiri waxa iyadana la aanu bilownay aroortay Kristiina dhashay oo 4 caruur ah in islaamka loo bandhigo iyaguna waa islaameen sidaas marka guri islaam aan ku sameeynay oo dad fara badan ay ku islaameen inkastoo ninkii Kristiina uu qabay ee walaalkay ay tiri isaga uu dhintay oo runtii xaalad muxuu ahaayay in aan sax ahayn ayuu isagu waqtiga uu ku dhintay laakiin intii kala ka soo haray islaamka ay qaateen daawada wuxuu ku saabsan yahay darsigeena wax weeyaan ee uga goleena yaani islaamku qofka ugu hooseeya jaariyada ah iyo ka madaxweynahuba isku sida u dareemayaan islaamka inuu baahan yihiin isku sibuu u saameynaya gabadha ayare jaariyada ah quraanka ayare inanka akhrinaya saameyn ku sameeyay waa taa islaamta ninka madaxdeena waa sidaas leeg isna saameyn buu quraanku ku sameynaya intaas ku soo koobeen. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi